sanad kaste 27 Sebtembar ayaa wadamada adduunka waxaa looga dabaaldegaa maalinta dalxiiska caalamiga waxay sanadkan Soomaaliya si gaar uga duwan tahay sanadihii fogaa ee la soo maray in dhawaan golaha Jamciyadda Qaramada Midoobay ay ogolaatay in Soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto hay'adda UN-ka u qaabilsan dalxiiska adduunka 28 sano ka hor Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada loo dalxiis tago ee caalamka ku yaala iyadoo lahayd goobo qurux badan oo soo jiidasho leh taas oo saldhig u ahayd in dalka uu ka jiray xasilooni iyo iskaashi ama isku duubni u dhaxeeyay shacabka iyo dawladda. hase ahaatee burburkii iyo rabshadihii dalka soo maray muddadii fogaa ee la soo dhaafay ayaa sababtay in wax walba oo wanaagsanaa ay meesha ka baxday inkastoo xilligan ay jiraan dadaallo wax ku ool ah oo ay dowladda Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada Soomaaliyeed ka wada qayb qaadanayaan dib u dhiska caasimadda. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay munaasabad lagu maamuusayo maalintan caalamiga ee dalxiiska adduunka. madasha waxaa lagu soo bandhigay muuqaalo iyo sawiro ka turjumaya goobaha taariikhiga ee dalkeena uu leeyahay iyo sidoo kale dib u soo kabashada caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa ku bogaadiyay in bulshada Soomaaliyeed ay door ka qaataan qurxinta iyo xasiloonida dalka si caalamka ugu dhiirado dalxiiska dalkeena. Soomaaliyeed dalxiisku ma aha kaliya dad ajaanib inoo yimaadaan dalxiisku inaan annaga iska bilaabno inaan annaga goobaheennii horta aan quruxsano tusno caalamkana inay Soomaalida dhaqan ahaan waa dhaqan xalaan dalxiis oo ah martida inaan soo dhaweyno runtii gurigeennana sariirta ugu fiican seexino aad maaragtay u karaameen. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa uu tilmaamay in maamulka uu qorsheenayo dib u soo nooleynta bilicda iyo heebadii ay lahayd caasimadda dalka ee Muqdisho oo aan weli aaminsan inay tahay haddii aan wax badan ku dadaalo soo celinteeda. waxayna lahayd magaalo qurux badan oo loo dalxiis tago hiddo iyo dhaqanna ka deeqtoon aad ugu deeqtaan runtii. weli quruxdaas iyo heebadaas ilaa maanta qaybo ka mid ah xamar way ka muuqataa. allah u barakee xamar. Muqdisho waan hubaa inaan ka dhigi karno sidii ay barsamaadka ahaan jirtay ama si ka wanaagsanba. taa waa ku kalsoonahay maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar waxaa mar waliba ka go'an habeen iyo maalin inay ku howlanaato sidii ay dib ugu soo celin lahayd magaalada Muqdisho maqaamkii ay lahaan jirtay iyo sidoo kale inay ka dhigto magaalo nadiif ah isla markaana doog leh oo ujeedkeedu yahay in muqdishaawiga ku indhaqabuusado soona jiidato dalxiisayaasha caalamka oo dhan. taas waa hadafkeena. waxaa qorshaheena ka mid ah ka maamul ahaan oo aan rajeynayaa saaxiibkay Yaasir Baafe iyo wasiirka nagu caawin doonaan in maamulka gobolka Banaadir aan ku soo biirin doono xafiis dalxiiska ka shaqeyn doono insha Allah.
waxaa sidoo kale qorshaheena ah oo hamigeenu aad ugu sameeya inaan siyaabo kala duwan uga faa'iidaysano baddeena khayraadka ilaahay ka buuxiyey inaan siyaabo badan uga faa'iidaysano qorshaheenana waxaa ka mid ah inaan mustaqbalka u sameyno adeega loo yaqaano ferry serviceska ama adeega doonyaha isaga goosha oo taa micnaheedu ay tahay inaan suurtagelin adeeg doonyo ku dhiirigelina ganacsatada iyo dalxiiska inay isaga gooshaan muqdisho ilaa magaalo xeebeedyada taa waa qorshaheena insha allahu tacaala duqa magaalada muqdisho mudane taabit cabdi maxamed ayaa sidoo kale xusay in qof kasta oo reer muqdisho ah uu maamulka gobolka banaadir ku garab istaago horumarinta caasimadda. xaqiiqatan hawl badan baa ina hortaalla balse waxaan hubaa inaan u tallaabnay dariiqii toosanaa haddii aadna garab siisaan maamulka gobolka banaadir dowladda hoose ee muqdisho oo aan anigu horkacaya haddii aadna garab siisaan wuxuu hamigeenu yahay in aan caalamka oo dhan ku soo dhaweyno magaalada muqdisho oo ay ku dalxiisaan. Nuur Saciid Taaliil, Raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.